Sweden. haddaba warbixinta waxaa inoo sii faahfaahinaya waryaheena inooga soo warama Sweden Cabdulqaadir Salwa. يا مدن علي شيخ عثمان ومدحويني شرحي وكتناسش معاكو قصبي هرتي مركو هنا شرحته كدبنا تناسش وسؤال في عن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدعي ومدن علي الشيخ عثمان وحنا هنجري سرقال هورو عيدمدي هورو صوماليا أفري ستيتي وطن كسكتري أنا runtii kooxihii kasoo horjeeda dowladda aan ku biirin taasoo aan uga arkayay runtii waxyaalo badan aan eegay waan iskaga haajiray wadamada carabtaan galay kadibna wadamada yurub aan soo galay wadankan Sweden muddo 92 baan soo galay waxaan ku bartay family ayaan ahay caruur abo ah wadankan wax ku bartay waxbarashadiisii sii watay shaqooyin badanna waan ka shaqeeyay oo kala duwan oo kasoo shaqeeyay intaas waxa weeye horta waa nololeedkaygii haddaan soo noqdo su-aashaadii ahayd inaan madaxweyne isku sharaxo Soomaaliya horta sideeda nin Soomaaliyaan ahay aqoonna u leh hogaaminta kana bixi kara ayaan isleeyahay hogaanka sare ee Soomaaliya wax badanna ka qaban karay hadday noqoleed xiriirka caalamiga dibadda iyo hadday noqoleed arrimaha gudaha arrintaas marka hore waan soo sharaxay waxaan doonayay arrintaas inaan wax badan ka bedelo oo haddii aan ku guulaysto fikirkayga siduu ahaa inaan ummadda Soomaaliyeed u adeego kadib markaan saaxiibaday iyo la taliyaashii familkayga aan mataqaanaa dib isugu noqonay caabuqin oo dhacay oo shirar badan iyo aanu safri lahay safaradii xoogaa ugu yar adkaadeen oo waddanka gudihiisa ama wadamada dariska laha oo ka kaambegaree laha ayaan waxaan go'aansaday inaan hadda aan musharax madaxweyne aan noqon ka tanaasulo marka marba haddii qofkii wixii u niyeysto inuu ummadiisa wax u qabto oo hogaamiyo waa fikir fiican iyaad baan walaalaydiin salaamaya waxaa kaliya dardaaran naga in waddankaaga wax ku dhama ma heliso kaaga wanaagsan si walba markay noqoto in la iska daayo iska qabsiga in la iska daayo qabiilaysiga in la iska daayo jeclaysiga waddankiina aad u soo jeesataan waad ogtihiin kuwiina qurbaha jooga waa dhibantihiin kuwa gudaha joogana way dhiban yihiin marka caqligaas inuu shaqeeyo oo weliba waxaan aad uga codsanayaa dadka ganacsatada iyo dadka waxgaradka iyo dadka isimada leh ee kala duwan in ay markasta ka shaqeeyay culimadiinka arrimahan هذا كلسن تي في وعبد القادر سلو كلسن تي في